السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل iyo barnaamijkeenii falaqaynta wararka caalamka sadexdii cashaba halqodob wanigoo xasan maxamed fadlan dadku cusub tahay kanaalka subscribe dheh videogana like saar sina share garee soo dhawaada asxaabta. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly madaxweynaha cusub ee Mareynkanka Joe Biden ayaa maanta loo dhaariyay xilka iyadoo ay weheliso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Biden ayaa noqonaya madaxweynaha 46aad ee dalka Mareynkanka waxaana maanta bilaabmay muddo 4 sano ah oo uu ku arrimi doono aqalka cad iyadoo uu wajahayo xaalado adag oo ka dhashay cudurka COVID-19 iyo kala qaybsanaanta uu dhaliyay madaxweynihii xilka ka degay ee Donald Trump. xafladda ay dad yar ka qayb galeen oo ka dhacday xarunta Capitol ayaa Mr. Biden xilka loogu wareejiyay. waxaa sidoo kale xilka madaxweynaha loo dhaariyay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horeysay ee abid jagadaas loo dhiibo. sidoo kalena ah madow. Biden waa ninka tartanka adag la galay Trump. wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladii Obama. 8 sano uu hayay hoggaanka Mareynkanka. waa siyaasi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Mareynkanka. sida ay sheegayaan taageerayaashiisu wuxuu muddo 10 sano ka soo shaqeeyay siyaasadda arrimaha dibadda. madaxweynaha cusub ee Joe Biden wuxuu dhaqaaqay hawsha culus ee ah mideynta shacbiga Mareynkanka isagoo ku booriyay dadka Mareynkanka ah inay isu yimaadaan si ay uga hortagaan aafada baan ee COVID-19 iyo dhaqaale burburka, taasoo ka dhigtay malaayiin shaqo la'aan iyo kala qaybsanaan qoto dheer oo ku saabsan arrimaha cadaaladda jinsiga iyo naxariistarada booliska oo muddadii uu xukunka hayay Trump sii korodhay. maanta oo kale bisha January naftayda oo dhan waxay ku jirtaa isku keenidda dadka Mareynkanka oo waxaan mideyn qarankayga. waxaan ka codsanayaa qof walba oo Mareykan ah inuu igu soo biiro arrintan. Biden ayaa ku yiri furitaankiisa khudbadiisa taariikhiga. siyaasaddu ma aha inay noqoto dab holcaya oo baabiinaya wax walba oo jirkiisa ku jira, ayuu yiri Biden isagoo u baaqay dadka Mareynkanka inay isu yimaadaan